ningeela aad u yaqaan waa radio halgane la hayso la qabso ningeela aad u yaqaan waa la yiri hasha maxaa haya geela kudba ku jiri iyada way ku taxamayeen waxba ku birbay ku rideen hasha wuxuu hasha kudna uu hayay waxna way u weheliyaan horta Soomaali kudu haya laakiin Samaroon waxba u weheliya jabka isaaq ba u weheliya dhimashada isaaq ba u nolola baaba isaaq ba u nolola dhulku ay ka tagaan ba u nolola fashilaadooda ayaa u nol ceeb way taas waa xasidnimo way abtiyaal shalay ba ya mikrofon la dhaxmar boorama inamadii raalaati jiradii jaamacada ayaa halka ka hadlay waxay faan ka dhigayeen jaamacada awdal ee Amuud horaba dadku way isku dhex galeen xamar bay uga iman jireen maxay bay uga iman jireen war jaamacada Amuud la yiraahdo Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ba abuuray dugsigii sare Amuud buu ama jaamacad baad soo talwada jooga ma 20 sanadii lowdeen dugsigii sare Amuud buu ha inamada jaamacada ka hadlay waxay yiraahdeen horaba jaamacada Amuud way uga tirsaneed xamar horaba way u tagasay ma sha Allah ma tala hadii la isdhex galay war xamar run bay ka dhex toosan markii raabtiga ay sidaan uga filanay booramo baan xamar ku wada dhaxarka xalay war ilaahay ya yaqaana war miyaynaan isbabaraneyn war Soomaaliya isaaq wallahi waa hore kala badiyeen inay dib u kala badineen ba wallahi hore ilaahay noogu hiliye maantana uma jabano abtiyaal dawladnimadii Soomaaliland ee madaxdaad ka haydeen goor madaxaarka iska marisan jaamacada Amuud Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ba abuuray laba magac oo madaxweyne kaliya ku suntan Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo jaamacada abuuritaankeedii ku ka shacabka Soomaaliland tijaartooda iyo waxgaradkooda hanti ba kaga jirta jaamacad qaran weeyaan oo dalka iyada u jaamacada goormaadii lowdeen inamadii Hargeysa Gabiley iyadii ka imanay maanta la jooga goormaad nasiisateen afar inaan oo boosaas ka imaadiyo garowe goormaad nasiisateen afar inaan oo xamar ka imaada oo xamar hada waxeeda haysato ma boorama arday jaamacad kugu keeni wallahi bay ka tahay inama reer baatina xamar mala waxaad haysataan meel burcadin ka xigta war 3 kilomitir ba xamar idinka xigta iyadoo maanta jaamacad Gabiley leedahay iyadoo maanta Hargeysa jaamacad leedahay iyadoo burci maanta leedahay oo boorama hadana jaamacada koobaad ka tahay idin may dandamin jaamacada aad ku faanasaan Amuud leeyda ee aad shalay kulkiiba la talowdaan xamar ag dhigteen eed yaacdeen tacabka Soomaaliland ba ku jira jaamacad Soomaaliland run baan idin sheegana wali run ciidin ma sheegan abtiyaa madaxweynaha labaad ee ku suntan waa Muuse Biixi Cabdi Xildiid Samatar ana idin sheegaya naadi lowdeen 30 sanadood iyo 60 sanadood beeshii laga talaabi lahaa buundadii dhamuug maalintu sidaa u arkay ee ardayda jaamacadii kale hore ka qalin jabinaysay ayuu saa dhagax idin ku dhigay maalintiiba qandaraaska cid muusin halkii buu ka bixiyay maalintii la furayeen quruxdeeda iyo wanaageeda waa daawateen tacabaan naga jira jaamacadda Amuud waana Soomaaliland war goormaad dinaahideen sidii dibiga uga ciideen xamar inamada yaryar ee nacaybku ka buuxo ee xalay boorama ka hadlayay ee dadka xumaanta kala dhex dhigay ee waa la isdhex galay waa la yaac wareerkii raabtiga ee aniga maxaad casay dhalo abakora cid iga hibana sama jirta Samaroon jeex bay waan ku faanay laakiin maanta isaaq dhimashadiisa iyo marashadiisa ayaa u nolol noqotay raabtiga waxaan leeyahay jaamacada Amuud iyo boorama tacabka Soomaaliland iyo isaaq ba ku jira 30 sanadood waxa wasiir ahaa hawlaha guud dinaha oo ahaa muxuu ahaayay xubin golaha sare ee kacaankii la eeday ahaa Muuse Rabiilo Good abtigay nin Maxamed Casaaboha wadada isku xidha burciya Hargeysa maanta dhaxmarta halka boorama u gaarsiin kari waa ilaahay raali ah ka adeesh Sheekh Xaaji Daahir Cabdilaahi Ibrahim radiyallahu anhu agtiisa waa tii ku go'day argeegta ayay ku go'day waana la ogaa inamada malaha shalom bayadoo la amiyay tageen daahir yaale kaahin dilu gaarsiiyay wadadaas Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa bishii koobaad xilka uu la wareegay wadadii geeyay boorama maanta quruxdeedana wad aragtaan boorama Soomaaliland horteed hal fooq ma lahayn degma Gabiley la mid baahid waxa idin dhaafiye ma ogtahay Soomaaliland ba idin dhaafisay Gabiley wallahi ana runtii idin sheegay degmada Gabiley degmada boorama salaba la wada ciyaaray hadii maanta Soomaaliland idin ka helisay Gabiley oo caasimadda ka dhigtay oo rays yeelateen oo soo yeelateen oo intaas soo fooq yeelateen oo jaamacadda Amuud yeelateen ma kolkaaba dhimashadeeda ku farxaysan
war cid isdhex gelaysaana ma jirto cid meel tegaysa xamar tegaysaana ma jirto ilaahay nacaybkiinu nagu jirsiinaya abtiyaal wax idinla hadlaad weydeen intaasaanu hadlanno hadal walba ka gabananay waxaan idin leeyahay inamada yaryar xumaantu ka soo fufaso ee laga wado boorama cid baa wada nacaybka lagu abuuraya cid baa wada war shalay baa lagu kala dhinto wixii ka dhacay maantana xumaan faraha gelinina isaaq ilaahay unba wax ka qaadi kara haddaanu tagnana anagu midna dabageli xamarta la sheegay galgalay isaaq baa la dikayna malaa inamada yaryar may maqal magacaasa waxaan leeyahay war jaamacadda camudna tacab baa naga galay booramana tacab baa naga galay muxuu ahaa jamhuuriyadda somalilandna tacabay ayay gashadeen war wixiina xajista oo haddii meel la tegayana deedana daba jooga annaga idinka wakiila abtiyaale haddii kalena somaliland baad sidaa u muudsanasaane hadday idin dhadhami weyday ilaahay baa idin dhadhasiine laakiin jiritaankiinu yoonu noqon baaba ayaga abtiyaal ceb hadalkaasi waa hadalkii isaaq hadalkaasi waa hadalkii waxgaradka hadalkaasi waa codkii shacabka hadalkaasi waa idaacaddii radio halkan waxaan idin leeyahay xumaan idinma haynee xumaantii iska daayay abtiyaal boorama annagaa leh waddada annagaa leh dhismaheeda annagaa leh buruxdeeda annagaa leh cid naga soo horjeedaana ma jirto laakiin cid isdhex gelaysood yaacayso xamar tegaysaana ma jirto cidaad muquuni kartaanoo meel kaga tegaysaana ma jirtee abtiyaal aynu is agnaala labadeennoo wada qurux badan baaba ayaga waxba idin tari maayo iyo dhibaatadeeda ولا حسوق ولا أنا وحوي ورتبون قفوا ملك ولا سادات هشان لعكتوا ده أنا قبل حين الناس وهلا أنا قدات كان نصوف وقلنا مرق فره